ma rabtaa inaad website-kaaga lacag ka samaysid adigoo isticmaalaya Google AdSense? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, koorskan ayaan kugu bari doonaa wax walba oo aad ugu baahan tahay Google AdSense from start to finish. Haddaba koorskan maxaan ku baran doonaa? Koorskan waxaad ku baran doontaa 1. Sida loo sameeyo account AdSense ah. 2. Sida website-kaaga lagu xiro Google AdSense. 3. Waxaad ku baran doontaa sida xayeysiimaha loogu furo website-kaaga. 4. Markuu ku soo aqbalo steps-ka laga rabo inaad martid. 5. Waxaan ku bari doonaa sida uu AdSense u shaqeeyo. 6. Waxaan ku sheegi doonaa waxyaabaha laga rabo inaad iska ilaalisid markuu ku soo aqbalo Google AdSense. Haddaba haddii aad ka heshay koorskan, like saar muuqaalka, sidoo kalena Telegram-keena ku soo biir. Koors blogging ah ayaan soo wadnaa haddii Telegram-keena winkii uu gaaro, insha Allah. Aanu guda galno muuqaalkeena. Ugu horreyn, waa maxay AdSense? Google AdSense waa barnaamij ay leedahay shirkadda Google, kaasoo kuu sahlaya inaad lacag ka samayso website-kaaga adigoo xayeysiimo ku soo bandhigaya website-kaaga. Website-kan ayaan ku xirayaa. Aanu guda galno steps-ka. Step koowaad waxaan u baahanahay inaan sameyno account AdSense ah. Si aad u samaysid AdSense account, waxaad tagtaa New tab, waxaad search gareysaa Google AdSense. Search garee. Markaad search gareysid, waxaad ku dhufataa link ugu horeeya ku soo baxayo oo ay ku qoran tahay AdSense. Kadib shaashadan ayaa ku soo baxayso. Waxaad taabataa meesha ku qoran tahay Get Started oo geeska kor ku taalo. Meeshaas klik ku sii. kadibna Gmail-daada waxaa ka doorataa Gmail-ka AdSense ku sameynaysid. Gmail-ka dooro. Shaashada markay ku soo baxdo waxaad sameysaa meesha ay ku qoran tahay Your site, waxaa gelisaa domain name-ka website-kaaga. Meesha hoose oo ku xigtana waxaa gelisaa yes. Meesha saddexaad waxaad doorataa dalka payment-iga ama lacagta aad ku helaysid. Nasiib darro Soomaaliya wadamadan kuma jirto. Waxaa ka doorataa waddan aad ka heli kartid address iyo number. Address iyo number waddanka aad ka heli kartid oo qof ku joogo dooro. Hoos soo bax kadibna waxaa sameysaa meeshaas ayaa free ay ku qoran tahay meeshaas tick saar. Kadibna waxaad taabataa Start using AdSense. Haddii uu ka soo diido, waxaa laga yaabaa qalad yar inaad samaysay. Qaladkaana dadka badankood way sameeyaan. Waxaad sameysaa domain name-kaaga www. halaas ka reeb. Ka tirtir. Kadibna meesha hadda ku soo laabo oo waxaad taabataa Start using AdSense. Waddankaas klik ku sii. Kadibna waxaa ku gudbinayaa home-ka Google AdSense. Markaad joogtid, step-kan intaas ayuu ku dhamaaday. Ugu horreyn intaad wax kala sameyn, waxaad sameysaa meeshaas ugu horeysa section-ka ugu horeeya waxaa gelisaa information-kaaga oo meel fudud waa wax yar oo fudud waaye. Waxaa gelisaa address-ka iyo number-ka meesha ka haysatid. Marka intaad sameysid, waa nala socon kartaa step-ka xiga oo gudbi kartaa. Step-ka labaad, Google AdSense ayaan ku xiraynaa website-keena. Si aad ugu xirtid Google AdSense, waxaa ku dhufataa meeshaas section-ka saddexaad ay ku qoran tahay Let's go. Kadib code-kaas ayaa ku soo baxayo. Code-kaas copy dheh. Copy markaad dhahdid, back-end-iga website-kaaga tag oo WordPress-ka ah. Kadib waxaad taabataa appearance-iga meesha ugu hooseysa oo ay ku qoran tahay Theme Builder. Meeshaas klik ku sii. Klik markaa ku siisid, waxaa ka sii tagtaa meesha ku qoran tahay header.php. Meeshaas klik ku sii. Markaa klik ku siisid, hoos u bax. Close head-ka korkiisa meeshaas waxaa dhigtaa code-kii asoo koobiyey paste ku dheh. Paste markaa ku dhahdid, waxaa dhahdaa update dheh. Si aad u update gelisid. Marka intaad sameysid, waxaa u laabataa AdSense account-gaaga. Kadibna request-gaas taawo, klik ku sii. Haddii aad tagtid meesha ay ku qoran tahay sites, website-kaaga waa inuu soo qoraa
getting ready waa inuu soo qoraa. Stepka saddexaad waxa waaye website-kaaga inaad u samaysid GDPR consent inaad u samaysid waaye. Stepkan ayaan ku sameynaynaa. Si aad u samaysid GDPR-ka waxaad tagtaa back-endiga website-kaaga, kadib waxaad tagtaa meeshay ku qoran tahay plugins, add new meeshay ku qoran tahay kasii taabo. add new markaad taabatid waxaad search gareysaa pluginka aan rabno, magaciisa waxaa waaye GDPR. meesha search ku qor, search garee kadibna markaad search gareysid waa pluginka labaad. pluginkaas aad ujeedid waaye oo buluuga. ani hadda uu degsan yahay waxaa sameysaa install leh kadibna activate garee. markaa install gareysid oo activate gareysid geeska ayuu kaaga soo muuqanayaa meeshaasay ku qoran tahay GDPR-ka. click ku sii taabo. laba step bis ayaa laga rabaa. waxaa sameysaa meeshaan waxaad doorataa GDPR dooro. meesha saddexaad waaye GDPR dooro. kadib hoos u bax waxaad taabataa update settings taabo. sidaas ayuu kugu darsamay GDPR. Google AdSense-gan had diyaar ayaa u tahay inuu kusoo aqbalo. hadda haddii aan website-keena ku furno browser kale sida ujeedidba hoos inuu kusoo qabtaa la rabaa. waa kaasaa meesha caddaanta oo hoos kusoo qabanaysa waaye oo accept inuu dhaho kadib baa qofka xaysiinta la tusinaa. stepka xiga waxaan sameynaynaa xaysiimaha intuusan soo aqbalin ka hor ayaan sii diyaarsanaynaa. Google AdSense ku laabo waxaad taabataa ads meeshay ku qoran tahay, kadibna waxaa kasii tagtaa by unit meeshay ku qoran tahay. sectionka ugu horeeya oo display ads ay ku qoran tahay kasii dooro. markaa ka dooratid waxaa sameysaa ugu horreyn waxaa sameysaa magacsi meeshaas kore magaca ay rabtid ku qoro oo xaysiinta ku gari kartid. intaan kale sidoo ku day kartaa. kadibna waxaad taabataa create. koodkan ayaa kuu soo baxayo. koodkan copy dheh waa koodkii oo xaysiinta. kadibna waxaad dhigtaa meesha u baahan tahay inaad xaysiinta kusoo bandhigtid. koodkaas copy soo dheh back-endiga ku laabo. hadda ani waxaan rabaa inaan dhigo geeska oo sidebar-ka ah. waxaad tagtaa appearance kadibna widgets meeshay ku qoran tahay kasii dooro. sidebar-ka inaad dhigto markaad rabtid sidebar-ka dooro. kadibna hoos u bax plus meeshay ku qoran tahay pluskaas taabo. plus markaad taabatid waxaa sameysaa waxaad raadisaa custom HTML dooro. kadib koodka aad soo koobiyeysa meeshaas dhig oo paste ku dheh. kadib waxaa sameysaa saarta u kala hormari asaga ugu hormarsii ama ugu dambeysay xaysiinta haddaa rabtid. kadibna update taabo. update markaad taabatid waxaa ku laabataa AdSense-gaagi dhan dheh. kadibna saasna waxaa ku sameynay hal unit oo xaysiina. stepka xiga waxaan sameynaynaa auto edit-ka ayaan website-kan u furaynaa. stepkan haddaad rabin waa ka gudbi kartaa. home-kii u laabo. markaa u laabatid sectionka labaad ka dooro oo explore ka dooro. kadibna geeska auto edit-ka meeshay ku qoran tahay meeshaas ka furo. markaa furatid waxaa dhahdaa apply taabo. kadibna save taabo. auto edit-ka waa xaysiimaha marka hore Google AdSense oo soo muujinaya. hadduu rabo hoos kusoo muujinaa, hadduu rabana kor kusoo muujinaa. xaysiinta kale oo samayn kartid waxaa ka mid ah article ads oo ah boostiyaasha badanaa la dhex dhigaa. xaysiimaha badanaa boostiyaasha la dhex dhigo. meeshay ku qoran tahay ads taabo. kadibna by add unit kasii dooro. in article ads click ku sii.
kadibna si hadii tacamal waxaa sameysaa horeen magaca u bixi magaca kusoo xasuusan karto u bixi kadibna save and get code taawo kadib koodka helaysaa waxaa sameysaa koodkaas copy dheh sida hadii tacamal markaan waxaan u baahanahay saan u dhex dhigno post-yaasha plugin ayaan u baahanahay ileen post kasto mid mid ugu madari karnee koodka soo koobiyeyso kadibna waxaad tagtaa WordPress-kaaga plugins taawo add new kasii taawo kadibna add new marka aad taawatid waxaad raadisaa pluginka u baahanahay oo ah add inserter meesha ku qor add inserter search garee waa pluginka ugu horeeya kusoo baxaya waaye aniga ii degsan tahay waxaa sameysaa install leh kadibna activate leh asagoo sida hadii tacamal geeska kama soo muuqanayo meesha settingska dhexdeeda ayuu kasoo muuqanaya settingska tag kadibna waxaa kasii tagtaa add inserter click ku sii kadib sawirdan meeshan banaan waxaa dhigtaa koodkii aad soo koobiyesay paste ku dheh koodkii kadibna hoos u bax waxaa sameysaa meesha ugu horeyso oo posts ay ku qoran tahay meeshaas haddii tig ku saarneen tig saar keligeeda tig saar kuwa kale tig qaad ayada tig saar kadib hoos meesha hoose oo waxaa ka dhigtaa after paragraph ka dhig haddii wax kale ku tahay meeshan kalena waxaa gelisaa percentage kadibna waxaa numberka ay rabtid xaysiimahaaga inay u dhexeeyaan paragraphkiibu kadib meesha saddexaad waxaad doorataa center ka dhig aligninka xaysiimaha dhex bartamahaas ay u noqdaan intaas markaad sameysid save settings taawo sidaasna waxaa ku sameysay postiska xaysiimaha ayaa dhex dhigtay kadibna adsensiga u laabo waxaad taabataa I have finished meeshay ku qoran tahay iska dheh stepkana intaas ayuu ku dhamaaday kadib waxaa sugtaa in lagu soo aqbalo marka la soo aqbalo ayaan isku soo laaban doonaa insha Allah hadda loo maalin ayaa kusoo wareegtay markii aan dalbaday Google AdSense haddii aan fiiriyo inay soo aqbaleen in kale sida u jeedid baa la soo aqbalay shaashadan mar haddii ku soo baxdo waa lagu soo aqbalay ka dhigan tahay mar qaar waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato 2 isbuuc mar qaar waxaa laga yaabaa inay kusoo reject gareeyaan haddii reject kusoo siiyaan ku celi ilaa ay kaa soo aqbalaan website-ka wax ka qaldanna bedbedel meel kale oo ku akartiin inay kusoo aqbalaan waxaa waye sites-ka tag website-ka hadduu meeshaas getting ready aw lahayd hadday ku qoran tahay ready micnaheedu waxay ka dhigan tahay waa lagu soo aqbalay hadda 2 step oo kaliya ayaa noo dhiman 2 step oo ah Google Ads.txt inaan ku darno website-keena oo fileskiisa aan dhigno iyo inaan account information-ka aan buuxino oo dhamaystirno marka hore Ads.txt aan ku darno website-keena waxaa sameysaa filekaas meesha kaaga soo qabanayo oo ay ku qoran tahay Ads.txt download garee download dheh kusoo degaa kadib waxaa sameysaa waxaad tagtaa website-ka aad ka iibsatay hosting-ka aniga hadda Dreamhost ayaan ka iibsaday kadib waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay websites manage websites kadibna waxaad doorataa website-kaaga dooro domain name-kaaga manage dheh marka intaan kusoo baxdo manage files meeshay ku qoran tahay manage dheh kadibna files ayuu ku dhex geynaa waxaa ka doorataa domain name-kaaga ka dooro kadib waxaa sameysaa upload icon-ka taawo oo waxaa soo upload gareysaa filekii upload dheh filekii kadibna dooro
soo upload garee fileskan dhex dhig wax yar sug intuu soo upload gareynayo stepkan intaas ayuu ku dhamaaday ads.txt waa ku dartay website-kaaga hal step oo keliya ayaa hadda kuu dhiman si aad Google AdSense uga farxalatid mar kale ku laabo Google AdSense-gaaga hal step oo keliya ayaa dhiman sida u jeedidba mar walba kor waxaa kaaga soo qabanayo digniintaas waxay leedahay 3 option action learn more iyo dismiss digniintaas kor kaaga soo baxayso optionka koowaad ku dhufo oo ah actionkaas ku dhufo wuxuu ku geynayaa kadib account information ku geynaa kaliya waxaa laga rabaa meeshaas inaad dooratid transparency hoosna u bax meeshaas waxaa gelisaa domain name-kaaga meeshaas geli oo business name-ka ku qoran tahay waxba ha save gareyn asagaas automatic save gareynayo close-na ha dhihin markaas waxaa sameysaa hoos u bax personal settings-ka meeshay ku qoran tahay meeshaas click ku sii ayadana kadib waxaa gelisaa magacaaga koowaad iyo magaca labaad informationka hore aa usoo gelisay magacaaga koowaad iyo magacaaga labaad markaa gelisid waxaa sameysaa hoos u bax kadibna waxaad taabataa save click ku sii intaas ayuu ku dhamaaday dhammaan stepskii Google AdSense hadda waa isticmaali kartaa kaliya waxaa kuu dhiman inaad fahantid siduu AdSense u shaqeeyo haddii aan ku fahansiiyo hal mar sawirkan aan soo dhaweeyo meeshaas ay ku qoran tahay CPC waxaa laga wadaa cost per click ama lacagta aad ku heleysay halkii mar ee qof uu kugu dhufto xayeysiintaada mar walbana waxay ku xiran tahay waddanka uu joogo qofka Mareykanka iyo waddamadaas camal waxaa lagu dhufanaa lacag fiican ayaa lagu dhufanaa qof hadduu kuu soo boqdo oo kuu taabto meeshan kale oo ay ku qoran tahay clickiska waa inta qof ee xayeysiintaada kugu dhufatay meesha ugu badan lacagta laga helo waaye meesha kale oo ay ku qoran tahay page views waa inta page ay lagu fiiriyey lacagtan seeg ay ku qoran tahayna waa hala yaabin qof walbo adresska uu doortay waaye ani Sweden aa doortay lacagtan Sweden lacagteeda waaye meeshaas kale oo ay ku qoran tahay impression waxaa waaye inta qof ee xayeysiintaada aragtay waaye intaas haddii aad fahantay waxaan rabaa inaan kuu sheego waxyaabo ay qasab tahay inaad iska ilaalisid haddii uu kusoo aqbalo Google AdSense midda koowaad weligaa iska ilaali inaad xayeysiintaada ku dhufatid tan labaad qofna ha weydiin inuu xayeysiintaada kugu dhufto tan saddexaad AdSense labaad ha sameyn mar kale haddii aad saddexdan sameysid waxaa laga yaabaa inuu Google AdSense kaala laabto xayeysiintiisa heshiiskan uu kaaga baxo koorsada intaas ayuu ku dhamaatay haddii aad u baahan tahay wax caawimaad ah waana soo weydii kartaa sidoo kale telegramkeena kusoo biir haddii aad website u baahan tahayna sidoo kale waa kuu sameynaynaa whatsappkana lagula soo xiriir telegram kusoo biir whatsappka meeshaas ayaa ka heli kartaa